Hello, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو halkan waa ka sheekay sideen caadiga ahayd markaas soo sunaadno waxaan ka wada hadalnaa waxa la wixii cusub ama waxaan naqaano ama waxaan garanayay dad akhyaar oo cilmi Ilaahay baray aanu intaan la fariisano aan kala sheekaysano ama ka faa'iideysano hada dhowr arrimood baan rabaanteeda ka dabageeyay marka koowaad alxamdulillah xanuunka Ilaahay maadis xanuunka ka fiicanahay waxa jira in shan lix isha ka hor xanuunku yar taabtay de waxaan isku qarxiyay waxyaabooyinkii magaranaysa umadu dhaqaatiir Soomaaliya joogtay iyo magaranaysa dadka mudaawaadka iyo hawlahaas ku takhasusay alaabaha isku qarxinayeen meeshaan waxa wanaagsan sharci la raacaa jirta meel kasta sharci ay leedahay YouTube ka qof ku jiro waxyaabooyinka ma oo bisidii waxyaabooyinka dadka mid geyn karo unless aad haysatid shahaado u haysatid oo magaran qof sarfayo ah meel ku furan tahay oo arintan ku takhasusay oo dawo laga soo raasado adoo cilmigi waad ka hadli kartaa laakiin kama hadli kartid laakiin anigu waxyaabo badan oo anfacay baa jira oo aan isticmaalay waxaasna magaranaysa ay kulay dadka dhaqaatiirta eedidina aad kala sheekaysan kartaa halkaas aan kaga baxay arinta ayada alxamdulillah baan waxaan dareemayaa kaliya markaan neef weyn qaatan baan xoogaa in yar baan waxaan ka dareemayaa kadaalka dareemayaa sababtoo ah bahalkana xanuunkaana dadka markuu ku dhaco wuxuu ku reebaa sanbabada ayuu la dagaalamaa sanbabka ayuu ataagiraya dadku waa adiga maqlaya bishiina ku xirayaan si qofku maartay sanbabadii shaqadan badan oo sameeyay ay neefta ku caawiso mid la bahalkan hadduu kugu dhaco please uu soo laba kacleeyaa waxa u baahan tahay inaad waxyaabooyinka immune system-kaaga waxyaabooyinka dadku isku qarxinayaan inaad isticmaashid aad cunaysid dawooyinkan isku qarxinta waxaan ka wada alaabta al-shabaab kama haya ya alaabta al-shabaab lagu dacaydeenay maaha marka ilaahay na anfaco nagu anfaco magaranaysa caafimaadka ilaahay naga ilaasho magaranaysa xanuunada ilaahay cuqtiga xasadka iyo magaranaysa qofkan horay socodka selfishka ilaahay sharkooda naga badbaadiyo waxaan kaloo hadda ka hadlaynaa arrin kale oo muhiim ah rabaa inaan ka hadlo arrintaasina waxa weeye website-ka waxa ku jira fiidiyo badan oo dadka magaranaysa anfacaya ku jira YouTube-ka iyo website-ka ka sheekay.com halkan waxa ku jirta YouTube-keen channel-kan kala hadlayo waxa ku jirta oo ka sheekay la yiraahdo waxa ku jira fiidiyo badan oo ku anfacaya waswaaska iyo khanaaska dadka xoogaa waxyaabo badan oo waxyaabo shaadinta ku saabsan xanuunadan magaranaysa isha iyo xasadka iyo quruwaaga iyo ay keento waxa laga yaabaa waxyaabo badan oo ku fiican tahay baa jira oo Ilaahay haybad ku siiyay oo qof xasada ama qof magaranaysa la yaabayba waxyaabooyinka sameynaysa ama xoogaa waxay ku keeni kartaa xanuun bay ku keeni kartaa ilba qofkii lagu dhufan karaa ishaas ama xasad quruwa qof xayiro iskuulka Ilaahay ku siistay oo iskuulka aadsan ama qurxan noqoto ama dandiba kala noqoto ama nimco Ilaahay siiyay ama awlaad badan oo Ilaahay ku siiyay noqoto anything oo Ilaahay ku siiyay dadkeen magaranaysa sida u badan yihiin ummadda Ilaahay oo dhan reer kasta qabiil kasta wadan walba ha noqoto dadka qaarkiis waxay quruwa xasad baka ka buuxa Ilaahay baan ummadan soo deystay Ilaahay ummadda maadaama soo deystay wuxuu soo raaciyay نبيال يكتب يو مقران تضع خيار ولا قضيضو مقران سا وح والبا لا قضيضو مرك هذا كمهمة عن كراعو هدي أدسكت درينتد مقران سا ليزنا بدن هدا أسكت درينتد مقران سا عاجز هدا أسكت درينتد إلو شب بدن هدا أسكت درينتد حانونا ذا حلية ذا غارك سوق قبطة وح وانوين بدن أو أريمهاس سيدي إلهي سبحانه وتعالى حقيست أولا عرير لهيد أو في النوين كان يدباتون كان إشاني حسد كان سحر كان المقرانسة أو عافي ماذا لهيد إلهي حقيستنا أولا عرتدوي موقتك مركا فيديو يدا كتشرا ماشا أيا تشرا فيديو كتشرا ماشا تشرا أو كشا كان أيا channel كان أنا هيسم أو كشا كان مركا تصالحان كانكو كانت تقرين يا بالكا يا سكرين كاسكو كانت تقرين يا إن شاء الله هذا تصالحان أو كله waxaan tagayaa YouTube kan tagayaa YouTube ka markaan tago waxaan ku qorayaa ka sheekay
marka insha Allah waxaan ku xirayaa screenkan waxaan ku xirayaa iPad-ka waxaan record garanayaa marka waxyaabooyinka anoo idinka sheekeynaya practically idinka sheekeynaya waxyaabooyinka ku jira website-ka fiidiyoyo badan baa ku jira qofku markuu xitaa xaramka aadaysid fiidiyo ka sheekeynaya ku jira siyaabooyinka akhrinaysid waxyaabooyinka akhrinaysid dhagax tuurka wax alla wixii ma garanaysaa markaad xaramka aadid fiidiyoyo ka sheekeynaya baa ku jira fiidiyo ka sheekeynaya ku jira si ma garanaysaa adoo diyaarsan aad u tagtid aadan ugu xirnaan sheekha iyo dadka ku wada waxaad u raacaysaa unkun hawlihii kale laakiin cilmigaagii adoo bartay oo diyaarsan baad tegaysaa hadduu ilaahay idmo markaan kusoo noqono faa'iidooyinka marka aad website-ka ugu tegaysaan okay aynoo record gareeya marka bismillahi raxmaan raxiim hadda waxaan u gelaynaa marka waxaan gelaynaa ka sheekee waa kaa meesha inoo saaran gudahaan gelaynaa fiidiyoyada waa kuwaana marka fiidiyoyada ku jira marka hoos soo bax tusaale ahaan oo kale waa kan ruqya mujeda ruqya 4 ruqya 3 ruqya 2 ruqya talo 1 ruqya talo 2 ruqya talo 3 waxaa kale ku jira waxaa kale ku jira raaxada adduunka sheekh magaranaysa waa kana sheekh ilmil okay sheekhuna waa kaas waxaa kale ku jira halkaana waxaad idinka muuqda sheekhaan kale okay sheekh kasta marka waa idin daarayaa iyo tusaale yar baan idinka siinayaa halkana waa kana cimrada marka qofku cimrada aadayo kale tusaale insha Allah taala videogan ku baran doonaa al-umra sidee loo sameeyaa sidoo nabigeena sallallahu alayhi wa sallam umraystay laano waxa laga sheekeeyaa inaan ka qaadano nabigeena sallallahu alayhi wa sallam sidoo umraystay waa inaan umraysano هذا بعد نقول يا أيها الكافرون آخرنا مد لبعض نقول هو الله أحد أي دخل هل كان وحلا غير شيء لما يرجع وكودا وكبحنا شيخ السجا هل كان واحد حجك سيد لو قلته تالذي حجك أنا واكوانا تالذي حجك يسجن واكان قفك هذا قفك ربينه حجك هذا وحيابينك سمعوها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لحبرت الهنجيني هالمر وقاضي يا وكان إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أوكي مركب واحد كذا عن شنو مزدلفة قرحة أنتين الصباحين لكن برنامج هو يستين يعني قرحة لك أوكي إنكاس نوع هوي وسجى داركتين مركب عمرنا وارجني حكينا وارجني هكا سيارة وحيوانك dadka siyaarooyinka dhiganayaan diintu maxay ka qabtaa taasna waa fiidiyo ku saabsan baa sameynay وسلم آداب يا أحكام إلى زيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مركوه الرئيسة إلا بأخذ مدينة النبي صلى الله عليه وسلم نبينا وكبوري وصدق للنبي صلى الله عليه وسلم وأضبحثا قرت أبحثت وحويان وحد آذي كرتا قبورة بقيع مركز سياردي maaha مسلمين سيارنا laga sheekeynay maaha siyaaradii magaranaysa ay dadkeen magaranaysa ay dhigtaan oo nabi cali sallallahu alayhi wasallam ay yiraahdeen nabigan siyaaranay akhyaarteena ay sameeyso maaha waxa siyaaradan waa marka tagtid xaramka dhulka nabi cali sallallahu alayhi wasallam ku aasan yahay waxyaabooyinka aan sameyn lahayd buu ka sheekeynaya okay kaasna halkaas kaga baxaynaa okay waxaan u galaynaa marka aan soo noqono okay waan soo noqon marka xanuunada magaranaysa nafsiga xanuunada magaranaysa shayaadiintu ay ka hoskarayso siyaabooyinka loola dagaalamo iyo waxyaabooyinka la sameeyo afar waxa ku jirta talo oo ruqi ah baa ku jirta please make sure inaad dadka la share garaysid adiguna daawatid ka faa'iideysatid siyaabooyinka naftaada oo la tacaal lahayd ehelkaagana oo la tacaal lahayd hadda tusaalahaan kale أجر كسر دتك قارئ يقان دتك قارئ ما يقانان هذا هو حال قرب خوفك مسلم كهدي أجر كل حظه إنه إلهي وعرره هذا هو حيالها جروين كرن لو جدا وين قروا حكمة الرقية الشرعية تفيد الشرعية وقصة مع النبي صلى الله عليه وسلم كتاب إلهي كجرته سنة النبي نبي كجرته أنبياء إلهي لأنه ويسمين جرين نبينا عليه الصلاة والسلام وسمين جرين صحابتنا وويدين جروا وحكوا لي جري عيسى بندقة تفيدنا قاركودنا وبنين جري وحي سمينايان قاركودنا هدو شركوا كجرين وكريبين جري أو حتى وحوا يرادا hadduu shirki jirin uu ka reebi jiray nabi cali sallallahu alayhi wasallam haday saxayeen
وكرة عشري أو حولي جرس في عم بسميسي بارك الله فيك إلهي كوب بركيو هي دتك ساو عاوي مركا رقية تو مركا تلا تو بنجلين خير نخو بيشاريسو نيدنا waxaa gashaa daa'ina caafimaadi doonta biidni Ilaahi ta'ala hadda adii waxa ku jirta cilaajkeed ku jirta wad insha Allah ta'ala shifana wala kulli doonta caafimaad laba bari ka bacdi waxay tiri ya sheekh Faadil waxaad iiga warantaa markii aan caado qabo sidee quraan ku akhrina qafadu quraan ma akhrin kartaa sheekhi nafsirkiisa soo jawaabay Soomaaliga wuxuu yiri assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hayyaak Allah arinta aad iyo aad u fududahay laba galaafisa soo xiranaysa quraanka saas ku akhrinaysa safxadaha ay beesha ku rogaysa ama hadii kale computerka ka akhrinaysa qofka xaayad quraanka way akhrin kartaa barakallahu fiik خير نفطر هكا حالتين فمركي لما بريك بعد مركا بيسوي جوابته واحد الشيخ الفاضل برنامج يعيش شكتي الحمد لله وان بلا مالك هذه شكتي وحيالها الله كل ما واحد كمده مدحون كي قلت لي او يباجري مركز صوصن كاس غير عيال قصه الهندي قد القاسنا waxa way waa ruqyo talo labo ta saddexaad waa tana idan ay la dhigeysto لا قيمه markii salaada laga baxana dhaqsiin banaanka waado dadka marba inuu la kulmo mujtamaci ayuu ka cabsanaya waliba waa wax dhaqso imaanaya ma aha wax maaragtay tasiib u soo socdayo waa wax mar jug soo dhaxay waay wuxuu dareemayaa inuu dadka kaliis uu gooni ka noqdo uu rabo inuu iska maqnaado waa maqantahay maskaxdiisa maanta dhan waliba waxyaalaha qaarkood uu ku hadlaayo marka uu sameeyo ma fiirsanayo moogtahay ma fakari karo qofkii sidii hore uu fakarayo ma fakarayo hatta waxbarashadiisa sidii hore ma aha maskaxdiisa uma soo jeedo shaqooyinkii uu qaban jiray sidii hore uma qaban karo uu iska oyna sabab la'aan ma yaqaan wuxuu oynayo hurdidii ku yaraanaysa sariirtiisa markuu tago dhaqsan sayxan kaasna ruqyo talo oo ah qaybtiisa saddexaad way alxamdulilah rabbil caalamiin haddana waxaan u galaynaa ruqyo talo qaybta afraad baan galaynaa dad badan oo lagu wareersan yahay xaaladahooda jirada ay qabaan lama garan karo dhakhtar markii loo geeyo mashiin kasta la mariyo waxba ma qabtaan ayaa leeyahay daaweyn kala duwan la siinaya waxba ma taraya dhakhaatiir kala duwan qofka arkaya waa sidiisii markii wadaadada loo geeyay waxyaalo kala duwan uu dareemaya laakiin lama xadidi karo dhibaatadiisa waxaan insha Allah ta'ala barnaamijkan ka ku sheegaynaa waxyaalaha qaarkood oo caawin kara insha Allah ta'ala qofkaas xaaladiisana laga yaabo inay cadayso waxa ugu horeeya laga rabo inaad samaysid ya Abdullah ama ya Amat Allah waxa soo qaadaysaa zanjabil bolbara zanjabisha bolbara toddoba qaadaad ka qaadanaysaa waxaad ku qasaysaa laba dhalo oo biyo dabka saaraysaa waad karkarinaysaa laakiin ogow zanjabisha sida caanaha kale ayay isla markii fuuraysaa marka dabka ka dami markay saas bilowdo inuu soo kaco markay karkarto sida caanaha oo kale dabka ka dami qabooji soo qubayso markaad soo qubaysatid isqalaji markaad isqalajisid zanjabishii qabooday ayaa ruqyadaas marka sida arrimahan aad sheekh ka sheekeynay khayr Allah siiyo iyadoo sharaxan oo ka faa'iideysanaysa waxaad ugu tagaysaa ka sheekada ruqyo talo afar hadii ilaahay idmo ka faa'iideyso walaaladana la sheer gare please kana faa'iideyso hadaad nabiga kaleey salaatu soo siyaarinayso dad dhulka meesha nabiga kaleey salaam uu ku aasan yahay hadaad tagtina waxyaabooyinka aad sameyn lahayd iyo tarbiyadii aad raaci lahayd meesha ku jirta hadii ma garanaysaa aad cimraysanaysid wixii aad sameyn lahayd meesha ku jirta hadii ma garanaysaa aad rabtid inaad sameysid soo xajtid xajka aadaysidna iyo waxaad akhrin lahayd oo dhan meesha ku jirta hadii ilaahay idmo marka meeshaan waxa ku jirta fiidiyo badan oo naftaada anfacaya ayaa ku jira oo xagga caafimaadka ruqyo sharciya ah baa ku jirta insha Allahna waxaan sameynaynaa fiidiyo badan oo saas oo kala oo soo duubaynaa waxaan kala soo duubaynaa kutubyo hal kutub oo kala la bilaabaya kutub salaadka oo kala la bilaabaya qofku magaciisa kutubka la bilaabaya sheegayna doona hadii ilaahay idmo markaan sheegna waxaan sameynaa video 7 cisho 8 cisho hadba intuu soconayo 10kaasi baa bilow iyo dhamaadka maalinkaasi video laga soo gelin doona hadii ilaahay idmo oo kutubkii aan insha Allah mustaqbalka bilaabi doono maxaa kaloo inoo soo raaci doona inaan ka sheekayn doono waxyaabooyinka ilaahay inoo fududeeyo kale ama dad akhyaar oo la sheekaysano halkan waxa la channelkan sideedaba ka sheekay baa la yiraahdaa waxaan u furay in magaranaysa umada loogu faa'iideeyo ana ku faa'iideysto insha Allah sababta intan video oo meesha ku jirto oo dhan alxamdulillah rabbil caalamiin waa ka faa'iideystay nafteedana way anfacday waxaan umada la sii gaarsiin karana waa sii gaarsiin doonaa insha Allah waxaan idinkula talinayaa naftiina iyo naftaydaba waxaa idinkula talinayaa in magaranaysa la dadaalo in magaranaysa ilaahayna la isku xiro in magaranaysa naftu moogto waa iska itixaan naftu sideeda waa itixaan hawlooyin iyo waxyaabaha loo dirsan bay ku gelinaysaa afkaaga inaad ka adkaatid inaad mudda qalbigooda ilaalisid inaad awlaada naxariis badan la tuso awlaada iyo xaasaska in naxariis badan ragow la tuso aad bay u baahan yihiin ilmaha hadii magaranaysa degan oo la hadashid oo si naxariis oo la hadashid haduu khaldan yahay aadan magaranaysa dhinac kale ka tusid qayle iyo dil waxa ma taro dadka ka waaweyn oo walaalada cisi sharaftooda si dadka ka yar walaalada adiguna cisi sharaf si
iyaguna cishii sharafaa ku siiyaan ayaa wanaagsan noloshana waxay ku wanaagsantahay sidiisaba wax qof waxyaabooyin badan oo adiga waxa jirta adiga ku wanaagsantahay baa jira iyo waxyaabooyin dadka walaalada kaaga wanaagsan yihiin qofka libinta uqr qofka walaalka ee libintiisa uqr wuxuu kaaga wanaagsan yahay u ogolow ooga dambe yaa laakiin mid kale jirta marnaba qofku inuu iloobo maaha waxbaad kaga fiicantahay maaha inaad weliba qofka walaalka adiguna aad cisiga sharaftiisa siisid wuxuu kaa mudan yahay ayaad garanaysaa aad marisid aad bay u wanaagsantahay naftiina iyo naftayda waxaan kala dardaarmayaa in magaranaysaa aadan u noolaan dad ha u noolaan naftaada u noolow ummadaada waxaad faa'iideyn kartay faa'iidey shaqayso qof haddaad aragta inuu soo yeertaagtaa qallabsan yahay waxa way ka warwareeg salaanta ku badi markuu sheekay niicay kula yimaado hadalla qiila ka roonow u dhibri biidnillaah na waxaa la arkaa inuu qofkii magaranaysa aad wanaag ku dambaysan sababtoo ah waxa weeye qori ku taag sharaf ma laha qori ku taag sharaf ma laha hadday sharaf iyo wanaag leedahay Soomaaliya maanta meel ku gaari lahayd Soomaali meel ka gaari lahayd waa taamaasha maanta meeshaan ognahay aan naalo meeshaan ognahay aynu naalna weeye marka ilaahay ummadda caafimaad ha siiyo ilaahay dadka jiran magaranaysa caafimaad ha siiyo waalidiinta naga xanuunsan ilaahay caafimaad ha siiyo magaranaysaa waxbarashadana aad bay wanaagsan tahay qofka wax ka faa'iideysan kartid wax ka baran kartid ha ka xishoon waxaas ma aqaan ceeb maaha waa laga fiican waxaas ceeb maaha waxa waan aqaanaa ceeb maaha haddaad waxaad dad badan oo ka cilmi badanta arkaysaa oon arrintii ku hor ordaaya ama magaranaysaa meeshii adigu wax ka samayn lahayd ama wax ka habeen lahayd qof aan wixii aqoonin uu rangareynayo meeshii rangareynayo dhibaatooyinkaas oo dhanna waxaa keenaya cis la-aanta iyo isyasniinka iyo priority dantii guud oo laga horumarinayo danta soke laga horumarinayo iyo magaranaysaa reer iyo qabiil laga horumarinayo waxa inkaartaan dhibkaan iyo gaajadaan iyo fakrigaan iyo cis la-aantaan nagu keentayna waxaas weeye marka naftiina iyo naftayda waxaan ula dardaarmaya ilaahay laga baqo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa kaloo idin sheegaya meel alle meeshii kuu marsay ka simis haddii wax wanaagsan aad samaynaysay oo wanaagsan oo ilaahay raali ka yahay waaba ka soco dee hadday wax yaroo qalloocan tahay oo naftu ay taxaanay dee meel yaroo hawl yaro khalad ugu jirteen waa bal iska daa Allah ku shafay qayb ku rijina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته